waxaan saaxiibayaal kusoo dhawaada warka ciyaaraha caawa ee warbaahinta xogta ciyaaraha TV oo aan caawa ku qaada dhigi doono dhanka suuqa kale iibsiga wararkii ugu dambeeyay iyo sidoo kale kulamadii dhacay kooda ugu xiisaha badnaa oo caawa isdul taagi doono hadduu eeboyn ogolaado. aan ku bilaabay kooxaha kubadda cagta Manchester United, Barcelona iyo Real Madrid ayaa ciyaaray kulamadooda ugu horeeyay ee tijaabada. sidoo kalena waxaa jira dabcan warar waaweyn oo dhanka suuqa kale iibsiga oo si weyn loo saadaalinayo. intaan ugu gudagelin kulamadii dhacay balan ku bilaabo maxaa ka cusub dhanka suuqa kale iibsiga. kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa doondoonista ciyaaryahanka Rodri iyo Yan suuqa kusoo gashay. warar waaweyn ayaa laga maqlayaa suuqa kale iibsiga kadib markii ay kooxda kubadda cagta Real Madrid durbe u soo tafaxaydatay ciyaartoyda lagu magacaabo Rodri oo xulka qaranka Spain taariikh lama ilaawana ka sameeyay. kooxda kubadda cagta Real ayaa qorsheynaysa in sanadkan ay suuqa ka sameyso warar waaweyn oo lama filaan ku noqdo bahda kubadda cagta. Jose Mourinho ayaa horay ay kooxdu u soo qaadatay oo tababar ahaan u maamuli doona maadaama ay naadigu muddo dheer la dhibanayd tan iyo markii uu ka tagay macallin Carlo Ancelotti maamulka dhanka tababarka ee naadiga Real Madrid. Rodri waxa uu ku jira ciyaartoyda ugu xirfadda wanaagsan waqti xaadirkan waxaana uu ku guuleystay ciyaartoyda ugu fiicnaa koobka adduunka. xidiga naadiga Manchester City ayaa markan laga warsugaya natiijada wararka suuqa ku jira kuwaas oo laga yaabo in ciyaaryahanka saameyn ahaan ay markaasi wararkaas ama uu diido ama uu ogolaado. Real Madrid dhankeeda suuqa ciyaaryahanka Yan oo xidig daayar ayaa isna la sheegay inuu ku soo biiri karo kaas oo si weyn u doondoonayay toddobaadkii la soo dhaafay. wararka ku saabsan ciyaaryahanka Rodri iyo Yan ayaa si weyn u sii xoogeysanayay saacadii la soo dhaafay waxaana caawal xaqiijiyay in ay durba u direen wakiilo ka war doona si ugu yaraan warar ka duwan kuwa hadda socda looga helo. natiijadan ayaa u muuqanaysa mid wax weyn ka bedeli doonta arrimaha suuqa kale iibsiga oo si weyn haatan loo hadalayo. kooxda kubadda cagta Real Madrid suuqeeda intaa kaliya kuma koobno oo ciyaartoy kale ay naadigu si weyn u doondoonaysa. welina waxaa jira wararka waaweyn ee lala xiriirinayo xidiga hor leh oo ay kooxdu doondoonayso. intaa markaan uga soo tago Real Madrid, Chelsea ayay doonaysaa. naadiga kubadda cagta ee Chelsea ayaa tan iyo markii uu qabtay xilka tababaranimo Xavi Alonso waxa ay markan u gashay suuqa si weyn oo ka duwan sidii hore iyadoo qorsheynayso qaadashada ciyaartoy waaweyn oo ay doonayso inay suuqa markaasi ku qabsato. naadigu waxa u diyaar garoobaysaa ku guuleysiga horyaalka Premier League wadanka England iyo sidoo kale tartanka xiisaha badan ee Champions League si ay qayb uga noqoto kooxaha si weyn ugu tartamaya. naadiga kubadda cagta ee Chelsea ayaana markan suuqa uga gacanatay ciyaartoy waaweyn oo ay kamid yihiin xidiga lagu magacaabo Morgan Marco, ciyaaryahanka lagu magacaabo Condero iyo xidiga kale oo dhammaantood ay naadigu si weyn u doondoonayso. xidigahan ayaa kamid ah kuwa waqtigan ugu xirfadda wanaagsan marka loo eego ama laga hadlayo dhanka kubadda cagta. waxaana ciyaartoydan dhammaantood ay u diyaarsan yihiin inay suuqa ka faa'iideystaan kooxaha haya beeca lagu doondooni karo ama qandaraaskooda lagu jebin karo. naadiga kubadda cagta ee Chelsea oo wada dhismo ballaaran ayaa markana suuqa si weyn looga dareemayaa kadib markii ay lacaga waali la soo gashay oo ay ku doondoonayso ciyaartoy. Alonso ayaana xooga ku saaraya maamulka sare ee naadiga in ay ugu dambeyn go'aan rasmi ah ka soo saaraan wararka dhanka suuqa oo ciyaartoy waaweyn ay keenaan halkan si ugu yaraantaasi u noqoto natiijo wax looga bedelo tartamada ay kooxdu qorsheynayso ku guuleysigooda hadduu eebweyn u qorsheeyo. dhanka xiriirka kooxda kubadda cagta Chelsea waxay xiriir la sameeyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Maxence iyo Barca oo dhammaantood kamid ah ciyaartoyda ay sidoo isha ula raacayso. waxay kuwa uga duwan yihiin waa in xiriir kaliya la sameysay oo suuqoodu uu hadda bilow yahay. taasina waxay natiijo kale u yeeli doontaa sida ay ugu diyaar garoobaan ciyaarta marka ay dabcan ay suuqa kale iibsigu soo xirmo iyadoo wararku inta ay ku darayaan in xiriirkan uu saameyn ku yeelan doono haddii kooxdu ay ku guuleysato wararka la xiriira in xiriirka ay la sameysay labada ciyaartoy ay noqdaan kuwa meel dhala. inta markaan uga soo tagno Barcelona ayaa markan iyadu markaasi hore u soo qaadatay ciyaartoy ay kamid ahaayeen Jordan iyo ciyaaryahanka lagu magacaabo Adimi oo ka tirsan ciyaartoydii ama ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. Barca waxay sanadkan isu xoojinaysaa si ka duwan sidii hore maadaama ay soo qaadatay ciyaartoy waaweyn kuna cusub dabcan kooxda. Gordon oo u dhashay wadanka England ay kooxda horay qandaraas weyn ugu soo saxatay waxayna markan keentay ciyaaryahanka lagu magacaabo Adimi oo ka tirsan ciyaartoyda naadiga Borussia Dortmund si weyn dabcan loogu xasuusto waayihiisa ciyaareed ee Borussia si gaar ah macalinka naadiga Hansi Flick ay saaxiibada u yihiin maadaama ay waqtiyo kala duwan kusoo kala qaateen xulka qaranka Jarmalka iyo kooxo kala duwan. Hansi Flick ayaa si gaar ah ciyaaryahankan u xiiseynaya wax u arkaa fursad muhiim ah
oo dabcan kooxda ku sii hayn karo maadaama ciyaaryahanku yahay mid kamid ah kuwa ugu xirfada wanaagsan si gaarana uu ku soo baxayo falsafada Hansi Flick ee naadiga Barcelona doonista kooxda kubadda cagta ee Barcelona labadan ciyaaryahan ee soo qaadashadooda ayaa macno kale u sii yeelay horyaalka wadanka Spain oo 21 bari oo kaliya ay nooga dhiman yihiin loona balansan yahay in la baasto inta wixii ka dambeeya Flick waxa uu markan qorsheeyay inuu dib horyaalka Spain ugu guuleysto difaacashadiisa ayuuna ka sii fikirayaa sida ay noqon doonto iyadoo oo markaasi uu si gaar ah u qorsheynayo in horyaalka wadanka Spain oo ciyaari oo macalinkaasi guushiisa kadib Champions League tartankiisa u sii galo Adeyemi Gordon iyo kuwa kale ayaa kooxda dabcan qayb ka sii ahaan doona Ferran Torresna waa loo diiday PSG ugu dambeyn waxayna adiga Barca qorsheynaysaa inay saashada ciyaartoyda dhowr ciyaartoy oo ka tirsanayaan la raba garoonka in lagu sii hayo si guulo looga gaaro kulamada kala duwan ee kooxdu ciyaarayso inta marka laga soo gudbo maxaa ka cusub markan Spain Talyaaniga iyo sidoo kale si guud horyaalada qaaradda Yurub ayaa bilaaban doona dhamaantood marka laga soo tago horyaalka wadanka Spain ayaa bilaabanaya 21 maalin kaliya dhammaan kooxuhuna way soo xoojiyeen dagaalka iyo harjadkuna waxa uu ka bilaaban doonaa meel ka duwan meelihii hore kooxuhuna waxay ku dagaalami doonaan in tartanka iyagu ay ku guuleystaan inta marka laga soo tago horyaalka Jarmalka ayaa bilaaban doona 35 maalin kadib oo caawa laga joogo taasoo ka dhigan in markaasi ay kooxuhu u sii diyaargaroobayaan haystaan fursad ay 35 maalin ku saxaan khaladaadka ay ka barteen xilli ciyaareedkii in weydaartay France 28 England 28 ayaa loo balansan yahay 28 ayaa loo balansan yahay in dib loo wada bilaabo kulamadaas dhamaantood waxaana dabcan horyaalada qaaradda Yurub ay noqonayaan kuwa si gaar ah xiiso u leh taasoo ka turjumi doonta in ciyaartoy badan lagu arki doono horyaalada aysan ka ciyaari doonin Talyaaniga ciyaartoy ka ciyaaraya lagu arki doonaa Spain iyo England iyo Faransiiska kuwaas waxay ahaayeen dabcan wararka ugu waaweyn ee dhanka suuqa kala iibsiga iyo xilliga horyaaladu ay furmayaan Manchester United iyo doonaysa ciyaartoy qadaxa iyo weerarka Casemiro ayaa ugu dambeyn ku biiray sida wararka lagu helayo naadiga Inter Miami oo dabcan ay hore u joogeen Messi Suarez iyo kuwa kale maadaama baskoodu baneeyay booska iyo lambarka shanaad ee dabcan qadka dhexe labadaba waxa buuxiyay Casemiro oo ciyaaryahan lambarka lixaad ku ciyaara Messi ayuuna ka garab ciyaari doona muddo kadib waana saaxiibka dhow ee waqtigan Messi maadaama uu Ronaldo ka soo garab ciyaaray Manchester United-na ka soo garab ciyaaray waliba in wararka suuqa ka bixin daawadayaal waxaad wali socotaan waa xanta suuqa kala iibsiga iyo wararka suurtagalnimada ee la heli karo Sacuudiga ayaa markan isaguna u soo qarab qaadanaya xidiga waaweyn oo ay lama filaan tahay in laga dhex qaado suuqa kala iibsiga Ousmane Dembele wiilka u dhashay wadanka Faransiiska u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain ayaa ugu dambeyn laga yaabaa inuu ku biiray naadiga Al Hilal kadib markii ciyaaryahanka la xaqiijiyay in wada hadal shakhsi ah uu dhex maray isaga iyo Al Hilal taas oo sawir kale u yeeri doonta firashada Paris ay ka qabto inay siyaasada ciyaaryahankan Luis Enrique oo macalinka xulka kooxda kubadda cagta Paris ayaa markana ay suurtagal tahay in ugu dambeyn uu waayo wiilkiisa lugta bidix ku ciyaara Ousmane Dembele arintan ayaana suurtagal ay tahay in marka ugu dambaysa ay wararku inta ku daraan in uu ciyaaryahankaasi ku biiro naadiga Al Hilal oo hore u joogeen xidiga waaweyn oo dabcan qaaradda Yurub si weyn looga yaqaan Sacuudiga ayaa waqti badan iyo dhaqaalaba ku bixiyay sidii u heli lahaa ciyaartoy xirfadlayaal ah oo kubadda cagta kadib Ronaldo iyo kuwa kale oo halkaas tagay Fabinho Karim Benzema iyo sidoo kale N'Golo Kante iyo kuwa ka sii horeeyay oo Sacuudiga lagu arkay inay kubadda cagta ka soo korsaynayaan halkaas dhaqaalaha ugu badan ayaa yaalay halka maalmo ama muddo ka horba ay yaaleen Mareykanka iyo sidoo kale wadamo kala duwan oo si gaar dhaqaale ugu bixinayay inay wadankooda keenaan ciyaartoy waaweyn sida Messi oo ku biiray Miami iyo kooxo kale oo dabcan ama ciyaartoy kale oo uu kamid ah Busquets Suarez iyo sidoo kale xidiga ugu dambeeyay Casemiro oo isaguna Mareykanka ku biiray Sacuudiga iyo Mareykanka ayaa laga yaabaa inay noqdaan wadamada labaad ee dhaqaalaha ugu badan ku bixiya dhanka kubadda cagta caalamka maadaama ay u arkaan mid kamid ah fursadaha ugu waaweyn ama ugu muhiimsan ay magacyo uga sameyn karaan dunida kubadda cagta oo dabcan lagu xasuusto in koobkii adduunka wadamadaasi aysan natiijooyin wanaagsan kala soo laabanin gudaha inta warka ciyaaraha caawa warbaahinta xogta ciyaaraha TV oo caawa ku qaada dhigaydeena wararkii ugu dambeeyay ee dhanka ciyaaraha